waa maxay sababta dadka qaar ay ugu adag tahay inay xiriir la sameeyaan dadka kale halka qaar kalena ay baahi xooggan u hayso la sameynta xiriir dadka kale qaarna ay ka baqaan inay xiriir la yeeshaan xilli ay aad ugu baahan yihiin marka loo eego daraasadda loo yaqaano attachment theory maxaa yeelay waxaa ugu wacan dadku waxay leeyihiin qabab xidhiidh ama style oo ay dadka kale kula xidhiidhaan haddaba aan idinla wadaago 4 nooc oo hab xidhiidh ama waxa loo yaqaano attachment style oo ay dadku leeyihiin sida ay u abuurmaan xilliga carruurnimada iyo sida wax looga qaban karo haddaba waa maxay attachment style waa hab xidhiidh qofka u gaar ah kaasoo uu kula xidhiidhayo ama xiriir kula sameynayo dadka kale daraasaddan waxaa markii ugu horeysay soo saaray 2 dhakhtar psychologist ah oo lagu kala magacaabo Mary Ainsworth iyo John Bowlby sanadkii 1950 hab xidhiidhka ama siduu qofka dadka kale ula xidhiidhayo waxay dhisantaa xilliga carruurnimada taasoo ka soo bilaabata xidhiidhka aan la leenahay waalidkeyn ama cidda ina soo barbaarisay asal ahaan sida aad dadka xiriir ula yeelanayso marka aad weynaato waxay ka tarjumaysaa sida aad xiriirka ula lahayd waalidka ama ciddii ku soo barbaarisay xilligii aad yarayd hab xiriirka qofka ama attachment style-ka waxaa qayb ka ah sida aad dareen ahaan ama emotion ahaan dadka ugu falcelinayso ama habla dhaqankaaga dadka iyo sidaad ula xiriirayso waxaa jira 4 nooc oo hab xiriir ama attachment style waxayna kala yihiin secure, anxious, avoidant iyo fearful avoidant haddaba aan mid u dul istaagno kan ugu horeeya waa secure attachment style qofka leh habkan wuxuu awoodaa inuu si fudud qof kale ula sameeyo xiriir jacayl oo kalsooni leh waa qof aamini kara dadka kale isagana la aamini karo waa mid wax jeclaada isagana la jeclaado kama baqo inuu dadka kale xiriir dhow la sameeyo ama falgal kalgacayl ku dheehan waxa loo yaqaano physical intimacy dadka leh sifahan wax walwal ah ma qabaan marka uu lamaanahooda doonayo inuu waqti la qaato kamana walaacaan marka uu firaaq u baahan yahay waa kuwa ogol inay dadka kale ku tirsanaadaan iyagana lagu tirsanaado beddelkii ay keligood uun isku tirsanaan lahaayeen hab xiriirkan waxaa leh 50% dadka adduunka ku nool sida ay xaqiijisay dalad arrimahan ku shaqo leh oo ay hogaamiyaan dhaqaatiir cilmi nafsi ah oo ay ka mid yihiin Cindy Hazan iyo Philip Sheffer 1980 kuwa aan ahayn secure attachment style waxaa loo yaqaanaa insecure attachment style midka labaad waa anxious attachment style dadka leh hab xidhiidhkan waxaa gudaha ka haysta cabsi gundheer oo ku aadan in la cidleynayo sidoo kale waa kuwa aan gebi ahaanba wax kalsooni ah ku qabin xidhiidhkooda waxayna mar walba ka walaacsan yihiin in qofka lamaanahooda ah ka tegayo ama khiyaanayo waxay waqti badan ku bixiyaan daba socoshada lamaanahooda waxay u ooman yihiin aqbalaad hab xidhiidhkan anxious style-ka wuxuu badanaa la xiriiraa baahi dareen oo xooggan oo qofka haysa tusaale ahaan marka uu lamaanahaaga fariin u qorto kadibna uu dhaqsi kaaga soo jawaabi waayo waxaad durbadiiba noqonaysaa qof nervooso ah ama walaacsan waxaadna mar walba dareemaysaa in lamaanahaaga uusan aad kuu danaynayn waxaa fudud dadka leh style-kan inay si fudud jacayl uga dhacaan 20% ayaa leh hab xidhiidhkan sida ay daraasaddu tilmaantay midka saddexaad waa avoidant style dadka leh hab xidhiidhkan waxay ka baqaan ama dhib ku ah inay falgal kalgacayl intimacy ay la sameeyaan dadka kale si kale inay waqti raaxo leh la qaataan lamaanahooda ayaa ku adag waxaa sidoo kale dhib ku ah inay xiriir dhow la sameeyaan dadka kale ama aaminaan waxay u maleynayaan haddii dadka kale ay xiriir dhow la sameeyaan inay go'doon noqonayaan ama ay xorriyaddooda weynayaan waxay markasta ka fogaadaan qofka lamaanahooda ah dareen ahaan ama emotion ahaan oo kuwa aan joogin way ku adag tahay inay xiriir romantiga la sameeyaan lamaanahooda rabitaankooda galmo ma badna xilliga galmadana waxay door bidaan in leerka ama nalka la damiyo waa kuwa markasta doorbidaya kelinimada iyo inay naftooda ku tirsanaadaan mararka qaarna waxayba iska dhaadhiciyaan inaysan u baahnayn wax lamaano ah in ka badan 20% ayaa leh hab style-kan ama hab xidhiidhkan midka afraad waa fearful attachment style midkan waa anxious attachment iyo avoidant attachment oo la isku geeyay dadka leh hab xidhiidhkan waxay u ooman yihiin kalgacayl haddana
waa kuwa iska ilaaliya inay xidhiidh yeeshaan. Waa dad ka labalabeeya inay xidhiidh romantiga la sameeyaan lamaano kale ama qofka lamaanahooda ahba. Haddana waxay si weyn uga ooman yihiin inay dareemaan in la jecel yahay. Walow aan la haynin lambarka saxda ah ee bulshada ay ka yihiin, haddana waa kuwa ugu khatarta badan oo kelinimada ku raaga ama xidhiidhkooda si fudud ku baabi'i karo haddii aan la helin daaweyn ku habboon. Haddaba, hab-xidhiidhyadan afarta ah sidee ku dhismaan ama qofka ku yeeshaa midkood? Attachment style ama hab-xidhiidh samaynta qofka wuxuu dhismaa xilliga carruurnimada. Canuga marka uu dhasho waa mid baylah ah oo u baahan qof uu xidhiidh la sameeyo, ku tiirsanaado, isla markaana daryeela. Xidhiidhka ugu horreeya ee uu kala kulmayo waalidkiisa ama cidda barbaarinaysa ayaa ka dhigi karta mid kalgacayl badan oo isku kalsoon, ama mid walwal badan oo aan kalsooni lahayn. Haddaba aan mid u sharaxno. Midka koowaad waa secure attachment. Qofka leh hab-xidhiidh samayntan, waalidkiisu waxay ahaayeen kuwo markasta si togan ama positive ah uga falceliya baahidiisa. Sidoo kalena waxay ahaayeen kuwa fahma oo dareema baahida ubadkooda. Waa qof la soo daboolay dhammaan baahidiisa carruurnimo, jir ahaan iyo dareen ahaanba. Midka labaad waa anxious attachment style. Waalidkiisu waxay ahaayeen kuwo marba si ah oo aan la saadaalin karin kalgacaylkooda. Mararka qaar waa kuwa ilmahooda siiya daryeel iyo kalgacayl, haddana muddo kadib ayay ilmihii ka weynayeen kalgacaylka iyo daryeelka ay barteen. Waxaana sababi karay waalidka oo mashquul badnaa, safar badnaa, ama geeri ku timid. Maadaama ilmihii aan baahidiisa dareen si joogto ah loo daboolin, waxay keeni kartaa qofka marka uu weynaado inuu yeesho hab-xidhiidhka anxious style. Midka saddexaad waa avoidant attachment style. Qofka leh hab-xidhiidhkan, waalidkuma aysan ahayn kuwa si togan ama positive ah uga falceliya baahida ilmaha. Waxay ahaayeen kuwa badanaa ka fog markay joogaanna aan si weyn u danaynin amaba si taban uga falceliya baahidooda. Dareen ahaan ama emotion ahaanna waxay ahaayeen kuwa ka go'a carruurtooda, taasoo keenaysa in ilmaha inuu aamino in baahidiisa aan weligiis la daboolayn. Midka afraad waa fearful attachment style. Badanaa hab-xidhiidhkan waxaa sababa marka waalidku ahaa kuwa ku nool jawi cabsi leh, aan la isku halayn karin, sidoo kalena isku dhacyo hooyada iyo aabbaha xaggooda ah oo jiray, dhibaato ka dhalatay xadgudubyo ilmaha loo geystay, iyo ilmuhu ahaa mid ka baqa waalidka oo aan ku kalsoonayn xilli ay u oomanaayeen daryeelkooda iyo kalgacaylkooda. Taasuu markuu soo weynaado ku abuuraysa qofkii inuu rabo jacayl iyo xidhiidh, laakiin uu haddana ka baqanayo. Sidoo kalena sababaysa inuusan qofka marna serious ka noqon xidhiidhka uu qof kale la sameynayo. Fiiro gaar ah. Haddaba badanaa waalidka arrimaha dhiilada leh ee ay ilmihiisa kala kulmeen kama ahayn ku talagal. Waxay u badan tahay inay sababtay garasho la'aan waalidka haysatay ama jahli, sidoo kalena dhaqan barbaarin oo soo jireen ah. Laga yaabo in waalidka qudhiisaba sidaas lagu soo barbaariyey. Waa arrin runtii u baahan in wax weyn laga qabto, sidoo kalena talooyin badan laga siiyo waalidiinta ilmaha barbaarinaya. Haddaba adiga ma taqaanaa nooca hab-xidhiidh ama attachment style-kaaga aad dadka xidhiidh ula samayso? Si aad u ogaato, waxaad u baahan tahay inaad afartan option mid ka doorato. Optionka koowaad: wax dhib ah uma arko inaan dadka kale xidhiidh la sameeyo, sidoo kale inaan aamino. Wax dhib ah iguma aha inaan ku tiirsanaado dadka kale, iyaguna ay igu tiirsanaadaan. Kama walwalo in la iga tago ama qof inuu aad igu soo dhawaado. Secure style. Optionka labaad: kalsooni daro baahan ayaa i haysa. Waxaa baahi badan ii haysaa inaan xidhiidh yeesho. Badanaa waxaan ka walwalaa inuusan lamaanahayga i jeclayn ama uusan i doonayn inuu ila joogo. Waxaan doonayaa inaan u dhawaado mar walba lamaanahayga, isaga uun ayaan mar walba mashquul ku ahay. Anxious style. Optionka saddexaad: si uun waxaan ahay qof aan aad ugu raaxaysan u dhawaanshaha dadka kale. Gabi ahaanba inaan aamino dadka kale ayaa igu adag. Wayna igu dhib badan tahay inaan ku tiirsanaado dadka kale. Waxaana noqdaa mid walaacsan marka qof aad igu soo dhawaado. Avoidant style. Optionka afraad: waxaan u oomanahay kalgacayl, haddana waan ka baqaa inaan qof xiriir la sameeyo. Waan ka labalabeeyaa inaan xiriir romantiga la sameeyo lamaanahayga, haddana waxaan si weyn ugu baahanahay inaan dareemo in la jecel yahay. Fearful style. Xasuusnow, hab-xidhiidhkan fearful attachment style kuma jirin daraasadii la soo saaray,
laakiin haddii hab xidhiidhkaagu yahay avoidant style, waxaa sidoo kale noqon kartaa fearful attachment style. waxaadna u baahan tahay inaad la tashato dhakhtar therapy ama qof ku takhasusay arrimahan si uu kugu xaqiijiyo hab xidhiidhkaaga. haddaba ma beddeli kartaa hab xidhiidhkaaga dadka? dabcan waa suuragal qofka inuu beddelo hab xidhiidhkiisa dadka ama attachment style-ka. si kastaba waxay kaaga baahan tahay dadaal badan, dulqaad, dareen iyo intention dheeraad ah. haddaba aan kula wadaago dhowr dariiqo oo aad ku beddeli karto. marka hore, haddii habla xidhiidhkaagu dadku yahay mid aan kuu fiicnayn amaba taban, ka bari Ilaahay inuu isbeddel u keeno noloshaada kuguna hago midka saxda ah. tan labaad, ka feker waayahaagii carruurnimo, xidhiidhkii aad la lahayd waalidkaaga, adigoo isweydiinaya su'aalahan: sidee waalidkaaga xaggaaga ku ahaayeen? sideed ugu falcelin jirtay? yaad u tegi jirtay marka aad dhibaato dareento? ma waxay ahaayeen kuwa aan kaa warhayn mise kuwa aad ku tirsanayd? su'aalahan waxay kaa caawinayaan inaad si cad u ogaato sababta uu ku samaysmay hab xidhiidhkaaga dadka. 3, ku dadaal ka shaqaynta kalsoonida naftaada. kalsooni darradu waa calaamad lagu yaqaano dadka hab xidhiidhkoodu uusan ahayn secure attachment style. baro inay naftaada soo dhaweyso waxyaabaha qiyamka ah, jacaylka, iyo inaad marka hore naftaada jeclaato. haddii aadan fahmin waxa uu yahay jacaylka nafta, sababtoo ah waxaa tahay qof la soo dayacay, lagu soo xadgudbay, sidoo kalena aan la daboolin baahidiisa dareen. 4, ogow baahidaada dhabta ah. dadka hab xidhiidhkooda uusan ahayn secure waxay badanaa ka baqaan inuusan xidhiidhkooda sii socon karin. sidaa daraaddeed, waa muhiim inaad ogaato habka ay naftaada ku dareemi lahayd ammaan xagga xidhiidhka aad ku jirto. tani waxaa qayb ka ah inaad ogaato baahidaada iyo damcaaga ku aadan xidhiidhka. noqo qof aan ka baqin inuu sheego waxa uu doonayo, sidoo kale samayso xad kuu gaar ah. ku muuji hadal ahaan waxa aad dareemayso iyo baahida, adigoo aan lahayn wax ujeeddo qarsoon. ha ka rajin qofka lamaanahaaga ah ama inuu aqriyo waxa maskaxdaada ku jira. adiga ayay waajib kugu tahay inaad si toosa ugu sheegto. ha ka baqin inaad la kulanto dhakhtar. habdaweynta loo yaqaano therapy waa mid si weyn u caawinaysa xaaladdan, shakhsi ahaan iyo lamaan ahaanba. dhakhtarka ku takhasusay arrimahan wuxuu kaa caawin karaa inuu aqoonsado halka ay dhibaatadaada ka jirto, wuxuuna ku siin karaa talooyin si weyn kuu caawinaya. waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iida muuqaalkan. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada. sidoo kalena ha iloobin inaad subscribe dhahdo kanaalkan, gambaleelkan aad furato si aad ula socoto mawduuca kale ee xiga. mahadsanid.